xilli maalmihii u dambeeyaba ay soo kordhayeen eedeymaha loo jeedinayo guddiga doorashooyinka Puntland ee ku aadan isdiiwaangelinta codbixiyayaasha golayaasha deegaanka ee ka dhacaysa magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug ayaa waxa maanta odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ee Galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ay cambaarayeen habmaamulka guddiga doorashooyinka Puntland ee ku aadan isdiiwaangelinta codbixiyayaasha taas oo xuseen in boqolkiiba 80 dadka laga diiwaangeliyay Puntland aysan ahayn dad u dhashay Puntland isla markaana ay ka yimaadeen deegaano ka tirsan Galmudug taas oo Soomaaliya qayb ka yihiin dad la shaqeynaya guddiga doorashooyinka Puntland oo sheegay inay lacag ku bixinayeen in dadku ay si aan sharci ahayn isaga diiwaangeliyaan codbixinta doorashooyinka Puntland ee ka soconaysa gobolka Mudug qaar ka mid ah odayaashii maanta kulanka ka qayb galay ayaana ka hadlay aragtidooda ku aadan doorashooyinka isdiiwaangelinta Puntland ee ka dhacda Gaalkacyo iyo nidaamka ay mareen guddiga doorashooyinka Puntland ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Tibeg waxa ay ka digeen odayaashu in arrinta ay sameeyeen guddiga doorashada Puntland ay keeni karto iska horimaad iyo colaad hor leh oo ka dhacda gobolka iyagoona baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hay'adaha ku shaqada leh doorashooyinka isdiiwaangelinta codbixinta Puntland ee ka soconaysa deegaanada Puntland. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Walaalayaal meesha fadhiya dhammaantood salaanta islaamka ku fadhiya baan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Soo dhawaada waxaan kaloo ka hadlahayaa maanta halka iskugu nimid odayaasha halka fadhiya iskugu yimaadeen waxay iskugu yimaadeen deegaamada Mudug oo Galmudug waxa ka dhacaya oo walaalaha iyo Puntland ay ka sameynayaan oo ah dadkii Galmudug deegaankii Galmudug in ay dadka ka sameynayaan inay dadka guraan inay kaar siiyaan inay lacag ku bixiyaan waxaan marka walaalaha uga digaynaa ma noqonayso waa daandaansi baan u qaadanaynaa daandaansi ma loo qaadan karo oo dad oo meel degan in dad u tashado dadkooda lacag siiyo soo aruursado yiraahdo dadka yagi weeye waa maxaasoo kale waa waxyaalaha ugu liita baa weeye waxyaalaha darisnimada dila weeye waxyaalaha la iskugu dhaco weeye waxaan walaalaha uga digaynaa inay waxaas ka waantoobaan intii hadda ay geeyeen oo kaarka siiyeenna waxaan leenahay waa ka digaynaa hay'adda soo hartay caalamiga oo wada doorashada dadka la aruurinaya Puntland ma ahan waa Galmudug waxa hadlayaan waa odayaashii Galmudug waxayna ka digahayaan waxaasay ka digahayaan waxaan ogeysiinaynaa dhammaan hay'adda wada doorashada qolada doorashada maamulka doorashada dhammaan waxaan ogeysiinaynaa dadkii masaakiinta oo reemiyiga iyo dadkii la mid ahaa oo dhan inay Puntland inay kaarsiisay lacag siisay magaaladii iyo wixii la mid ahana ay ku hadahayaan ay leeyihiin lacag baan siinayna ay aruurinayaan oo ay yihiin dadkaasi Galmudug weeye Puntland ma ahan hadhow bari waxaas way soo noqonayaan waxaan leenahay laga digtoonaado waxaan ogeysiinaynaa dhammaan inta ku shaqale hadday tahay maamulka Galmudug hore uga hadlay hadday tahay federaal hadday tahay qolada doorashooyinka dhammaantii waxaan ogeysiinaynaa waxa Puntland meesha Mudug ka samaysay ma ahan bahashi Puntland dadkeedii ma ahan dadkii Galmudug iyo dadkii Puntland oo dhanbay isku dartay oo waxay ka dhigtay Puntland ka dhigtay oo soo dhaweynayna waxa ka hadlay wasiiradii Galmudug khaasatan wasiirka warfaafinta baa ka hadlay musuqmaasuqa iyo qaabka iyo meelaha deegaamada aysan u lahayn aysan xaq u lahayn oo horay dawladuna saasay uga hadashay annaga odayaashii ah oo ka mas'uula dadka shacbiyadda baan annaguna ka digaynaa odayaashii maanay waa ka digaynaa. Salaamu ala ashrafil mursaliin ilaahay baa horta mahad iskale isku qaaya keenay ilaahay markaan u mahad celino waxaan salaamaynaa bulshada dhammaanteed culumaa diinka siyaasiyiinta dadka gobolka Galmudug
u dhashay oo galmudug ah dhammaantood waa salaamaynaa waxaan u sheegaynaa gobolka mudug dhinaca Puntland doorashada ka socota inay musuq tahay oo aysan doorasho xaq ahayn ayaan cadaynaynaa waxay ku tahay dadka laga qaadahayo guddiga doorashada iyo hay'adda wadda waxaan u sheegaynaa inay qaar hobyo ka keeneen oo xarardheere ka keeneen oo dadkii galmudug ay yihiin dadka la leeyahay waxbay dooranayaan doorashadana waxaa la rabaa doorasho xor iyo xalaal inay noqoto oo deegaan ku saabsan galmudug Puntland walaalahan waxaan leenahay daris baan nahay dad isxaq dhowr baan leenahay deegaamada galmudug dadka aad ka aruurinaysaan oo musuq ah oo lacagta la siinayo waa khalad waa wax aan walaal darisa ku fiicnayn hay'adda wadda waxaan leenahay dadka meesha laga keenay qofka aad kaarka siinaysaan xaqiijiya waxaa laga keenay wargaro waxaa laga keenay caliguula waxaa laga keenay Abarwaaqo deegaamadii galmudug baa laga aruurinayaa baabuur yar waxaa la dirinayaa barobakiisa baabuur baa la dirahayaa waxaas hal la joojiyaan leenahay waxaas hoomeeyaha lagu gurahayo leelooyinka lagu gurahayo dadka dhinaca galmudug laga soo aruurinayo doorashadaas xor iyo xalaal ma ahan waa musuq naga daaya dad darisahan nahay waxyaalaha gacan dhaafka annagu maadaama aan nahay odayaashii dhaqanka ee gobolka mudug ee galmudug waan ka digaynaa arrintaas musuqa oo aad iyo aad aan noola xun oo walaalahan u quurneen inay noo quuraan oo dadka yagii ay intay baabuur iyo hoomeeyo iyo lacag u diraan ay yiraahdaan cod baan ka qaadanaynaa oo leeyihiin waa Puntland waa warbeena Puntland ma ahan codashada ee codka ka dhaca gobolka mudug ee gaalkacyo waa cod musuqa waa galmudug dadka codaynaya waxaan salaamaynaa dadkan meesha fadhiya oo odayaasha dhaqanka ah waxa ay u yimaadeen haddii alla yiraahdo waa ka faalaynaynaa waxaan salaamaynaa islaamka dhammaantiis intii saxaafadda naga maqlaysa iyo intii meesha joogta dhammaantoodba waa salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed arrintayadu waxa weeye haddaan nahay dhaqankii galmudug waa digtoonaasho waa baaq waa salaan waxaanan salaamaynaa islaamka oo dhan waxaan salaamaynaa dadka deriska nala ah waxaan salaamaynaa ahalka dhammaantiis hadday tahay galmudug iyo hadday ay tahay Puntland dhammaantood waan salaamaynaa salaantaas oo ku lifaaqan waxyaalaha raggii hadlay uu ka hadlay oo ah doorashada la jecel yahay meelo xadka ka baxsan in wax lagu doorto dad aan ahayn dadkii doorashadaas ahalka u ahaana laga cod qaato arrintaas baan ka hadlaynaa ayagana waa u digaynaa waana u baaqaynaa intii arrintaas maamushay oo ka dambaysay oo ah guddiga doorashada hadday tahay iyo haddii ay tahay maamul qaran dhammaantoodna waxaan gaadhsiinaynaa arrintaas dib in looga laabto waa arrin aan ka baxsan sharciga dhaqanka ka baxsan weeye arrin sharciga dhaqanka ka baxsan weeye waa arrin dhib soo celin kadha oo dalka iyo dadka dhib ku soo celin kadha in laga digtoonaado baanu doonaynaa waxaan codsanaynaa arrintaas sidii ugu dadaal badan in looga laabto dadka la leeyahay doorashay gelahayaan oo iska caraabiga ah na ayagana in
waxaan ugu digaynaa meel aan waxaa la yidhi laba faras ninkii fuula futadaa kala dilaacda in aad arrinta ayna lahayn aad dib uga laabataan oo haddii la inii sheego aad ku gacan saydhaan ayna yeelinna baan idinkugu digaynaa haddaad yeeshaanna gurigiinaad ku gubaysaan gurigiina baad ku gubaysaan waxaan ogeysiinaynaa dhammaantood xukuumadda federaalkaan ogeysiinaynaa waxaan ogeysiinaynaa maamulada gobollada dhammaantood baan ogeysiinaynaa hadday heer ciidan tahay iyo haddii ay heer dhaqan tahayba iyo hadday xeel culummo tahay intaba waan ogeysiinaynaa waxaa la rabaa arrinta wixii lagu kacahayo wixii lagu kici jiray inay noqdaan ee wixii xadka ka baxsan wixii xadka ka baxsan bay keeni doonaan intaas baan ugu digaynaa dadka islaamka hana nala ka qaato cabdirasaaq maxamed axmed gaalkacyo.